Assalaamu calaykum asxaab. Maanta waxaan idin wadaa xikmado dhowr ah oo ka turjumaya nolosha. Ereyga xikmad asal ahaan waa erey Carabi ah, Soomaali ahaanna waa murti, waana erey ay ku dheehan tahay waayo aragnimo. Caaqilkii weynaa ee Luqmaan al-Xakiim ayaa wuxuu yiri, haddii dadku kugu faanaan hadal wanaagooda, waxaad ugu faantaa aamus wanaagaaga. haddii adiga qof abaal aad u gasho iska jir inaad xusuusiso, haddii adiga abaal lagu galana iska jir inaad ilowdo. haddii maalku kaa lumo waxaa kaa lumay shay qiimo badan, haddii sharaftu kaa luntana waxaa kaa dhuntay shay aanan maal goynin. sidoo kale haddii rajadu kaa luntana waxaad tahay ceer faqiir noloshoo idil seegay. shimbir geed saaran marnaba kama cabsato in ay laanta la jabto, sababtoo ah kalsoonidu ma ahan laanta ee waa baalasheeda. had iyo jeer ku kalsoonow naftaada. haddii ukunta banaanka laga jabiyo noloshu waa ay dhammaataa, haddii gudaha laga jabiyona noloshu waa ay bilaabataa. oo digaag yar baa dhalata. nolosha iyo wax walba oo seereeya waxa ay ka bilowdaan gudaha. marnaba ha sugin wax banaanka kaaga yimaado inuu noloshaada bedelo ama uu farxad kuu keeno. inagu ma awoodno joojinta dhibaatooyinka dhinaceena ah, balse waxaan awoodnaa in aynan siin dhibaatada kursi ay nagula fadhiisato oo ay nagula joogto. xabsiga ugu weyn ee bini'aadanka ku noolaado waa cabsida iyo fikirka waxyaabaha dadka kale ay ka aaminsan yihiin. haddii aad iska hadasho waxa aad ku celinaysaa waxyaabihii aad taqaanay oo kaliya, balse haddii aad dhegaysato waxa aad baranaysaa waxyaabo aadan aqoonin. fahmidu waxa ay ka baaxad weyn tahay aqoonta. waxaa jira dad badan oo ku yaqaana balse aanu ku fahmi karin. guusha dadka kaleeto ma ahan adiga fashilkaaga. marnaba ha ka xumaan qof kale guul uu gaaray. dadaal badan, dulqaad, doonid joogto ah iyo duco ayaa ah inta badan sababaha guusha. dulqaad yari iyo degdeg waa xididka dhibaatada. marnaba ma qasbi kartid nolosha in ay jawaabo ku siiso ama sida aad rabtid wax kasta ay u dhacaan. waa inaad ogaataa in culays kasta uu fudayd ka dambeeyo. waa inaad aqbashaa wax kasta in ay leeyihiin waqti. tartanka u dhaxeeya libaaxa iyo deerada waxaa had iyo jeer ku guulaysta deerada, sababtoo ah libaaxu waxa uu u ordayaa hunguri iyo cunno, deeraduna waxa ay u ordaysaa nolol. xusuusnow, ujeedadaada iyo hadafkaaga ayaa aad uga muhiimsan baahidaada.